aniga maanta haduu baalqab igu dhagan yahay koob iyo konton jeer anigu waxba kama soo qaado saa idin sheegay waa qofka marfuucul qalamka ah oo waxa weeye subaxdii wuxuu ku hadlayay habeenkii aan ogeyn oo waxa weeyaan de nolosha iskaga jira waxbana kama soo qaado hadalkiisa laakiin maanta inta halka la soo fadhiisto oo rag waaweyn oo waxa weeye maqaawirtii waxa weeyaan magaca hartiyeed ku hadli jirtay inta halka soo fadhiistaan inay maanta dhahaan qol 300 oo ruux saaran yihiin ayagoo markii horeba anaga gogoradeena ka lushay oo meel aanu ku nasano kala ay dhahaan may gabadh kabla la xaacay ma geyso gabdhaha tanade iyo gabdhaha mareexaan hal la caay maxay tahay waxaas markaa waayay codadkiina waa haynaa waana sii deynina gabdhihii hartiyeed marka lagu ruqaansaday oo sidii doono loo caayay oo sidii doono loogu raftay hadda waxa la rabaa ceebtii iyo xumaantii iyo gabdhacaygii intanada iyo mareexaan loo gudbiyo waxaasina waxaan yeeli karna ma ahan gabadha halka saarnayd dhashi ninka baarqab inta soo istaagay buuxu bilaabay xataa inuu personal attack ku sameeyo dhaho gabadh warsangeliya kuma dhaline gadaal baa la isaga noqonaya warsangeli baa isku noqonaya waxaan asmici karna ma ahan waxaan yeeli karnana ma ahan dibtii annagana lagu hayay in gabdhaha tanade iyo gabdhaha mareexaan loo gudbiyo bal tigtaaga inaad ku yar soco waxaan gacanta ku qabanayaa codadkana